kadib dadaalo nabadeed oo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu ka waday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake muddo toddobaad ah ayaa waxa uu maanta ku guuleystay in ciidamada Galmudug iyo Puntland ay ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo in la kala qaado oo laga raro goobihii ay ku dagaalameen si loo xoojiyo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhexmaray Puntland iyo Galmudug. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo kormeer qaatay muddo 7 saacadood oo xiriir ah ku tagay goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Galmudug iyo Puntland oo ah duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa ku amray saraakiisha labada dhinac inay ciidamada ka saaraan goobihii ay ku dagaalameen oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ayna ka shaqeeyaan nabadda isla mar ahaantaana ay meel iska dhigaan wax kasta oo keeni kara kormeerka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu maanta ku tagay goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Galmudug iyo Puntland ee duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ku weeliyay xildhibaan Dhagay Geelo Ugaas oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalka iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la isugu keenay barxadda cagar weyn ee bartamaha magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan xasilinta magaalada Gaalkacyo inaan helo farsamo iyo aqli dadkan ay ku wada noolaadaan aan dagaal sanad walba iyo saacad walba joogta ah uusan ka dhicin magaalo istiraatiiji ah weeye magaalada muhiim ah weeye waxa weeye waa ubuucdii ganacsiga Soomaaliya weeye marka in laga shaqeeyo horumarkeeda iyo dadku inay dalal wanaagsan sameystaan inaan ka shaqeynaa u baahan laakiin colaad joogta iyo shida joogta magaalada uma baahna goor iyo khayr baan rajeynaa insha Allah nabad waarta isan dib u soo laaban doonin insha Allah taala nabadii iyo xasiloonidii iyo nabad waarta sidii Gaalkacyo looga heli lahaana waxaan wada hadal ayaa la geli doonaa waan rajeynayaa dadka reer Gaalkacyo iyo aqliga intuu taliya in Gaalkacyo magaalo nabdoon oo khayraadkeeda iyo wanaageeda iyo istiraatiijiyadeeda laga faa'iideysto dadkan ku wada noolaadaan in la gaari doono waxaan rajeynayaa dadku inay arkeen dagaalka dhibka iyo mashaakilka uu leeyahay inay arkeen faa'iido darrada uu leeyahay inay arkeen barakaca iyo burburka iyo baaba uu leeyahay inay arkeen ayaan aad iyo aad u rajeynayaa. xildhibaan Dhagay Geelo Ugaas iyo xildhibaan Cabdiwaaxid Goonjeex oo ka wada tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha dalka uga mahad celiyay dadaalka uu ku bixiyay nabadeynta magaalada Gaalkacyo iyo guusha maanta ee ciidamada lagu kala raray. nabaduna sida oo kale way markaad haysato lama tabo waa la iska socdaa laakiin markaad weydo wax kale ma rabtid marka wax ku soconayaaba ma jiraan iyadoo marka taa loogu yahay taa laga duulayo haday Gaalkacyo tahay iyo haday qarankeenaba tahaba nabad iyo waxay tahay inaynu u soo istaagno Soomaali oo dhan ay lagama maarmo reer Gaalkacyana inta inaga qabiyada ah oo ah in loo marfurto oo loo fariisto nabadii in laga hadlo inay waarto qoftii khayr ka shaqeydana maalinta Ilaahay hortagta heli doonta qoftii xumaan ka shaqeydana maalinta Ilaahay hortagta heli doonta dadka walaalaha ee dhimanaya ee hor jooga qoftii dhib ka shaqeeyda runtii waa la isla xisaabtami doonaa adduun iyo aakhiraba magac fiican laga heli doona marka waxaan soo jeedinaynaa dadku si hadda walaal u yihiin inay isu turaan in wanaaga iyo amarka madaxdu sheegaysa la qaato magaalada lagu soo laabto runtii wanaagaasaan muddo ka shaqeynayna Ilaahay fadligii maanta waa ku guuleysanay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan mar dambe nagu soo noqon. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dawo uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya amray in lagu deeqo shacabka magaalada Gaalkacyo uu keenay magaalada dhawaana loo qaybin doono cisbitaalada ku yaala magaalada Gaalkacyo. reer Gaalkacyana idin la shaqeeyaan annagu ra'iisul wasaaruhu runtii aad iyo aad buu waqti ugu bixiyay halkan ayadoo waqti xasaasi ah la marayo inaad guuleysataan dadkana waxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan ra'iisul wasaare sidii aad nagu amartaba daawadi waa soo dhiibnay in la geeyo isbitaalada dhinacan waa timid dhinacan kalena waa u soo socotaa hadii la yiraahdo wixii kale gurmado waqti abaaraadna waa lagu jiraa waa qabanaynaa hadii la yiraahdo iyo maawanooyin iyo abaaraha ilaahayna ummadda abaaraha kor qaado colaaduna abaarta ayada ka daran colaadda Allah naga faydo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ugu baaqay shacabka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasilinta magaalada Gaalkacyo isla markaana aysan ahayn wax loo dul qaadan karo colaadda ku soo laalaabatay magaalada Gaalkacyo.
waxay noo tahay arrin farxada in maanta aan isugu imaanno meeshii runtii labada kontarool u dhexaysay saacado ka hor aan qofna joogin si ummadda deegaankan iyo ummadda reer gaalkacyo loo tuso in la soo yimid ciidankii la kala qaaday la rabo kalsoonidii in la soo cesho ummaddan aan ugu baaqay in runtii nabad ayaa laga shaqaynaya nabaddiina insha allah wixii dhammaystira waa la dhammaystirayaa dadkii inay soo noqdaan guryahoodii ku soo noqdaan insha allah ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keentaa xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehel aweeyey dad walaal aweeyey waxay ahayd ayaan daro in intaan la soo gaaro insha allah waxaan uga mahad celinayaa labada madaxweyne runtii kaalinta ay ka qaateen arrintan ciidanka kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba ummadda reer gaalkacyo aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaan rajaynayaa haddii laa yidhaahdo markay intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Gaalkacyo waxa uu ku sugnaa muddo 7 ah waxaana kulamo lagu dhameynayo colaadda Gaalkacyo la qaatay mas'uuliyiinta Galmudug iyo Puntland waxgaradka labada dhinac waxaana maantay wax lagu farxaa in dadaalkaas uu miro dhalay isla mar ahaantaana la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay duleedka magaalada Gaalkacyo taasoo lafdhabar u ah heshiiskii xabad joojinta ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid hormuudka ka ah ee la kala dhexdhigay Puntland iyo Galmudug. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Gaalkacyo.